oo milyuun dadka qaar oo taageeraha waxay dhahaan maxaa sharma iyo milyuun wax isku soo duubi lahayn abaa marka aan shanaad laba qof fanaaniin aan nahay haddana wax isku soo duubayna heesa asal soo duubayna qos laba qof fanaaniin aan nahay qasab waa inaan heesa soo duubo waan isku soo duubnaa hadda koor markii igu horeysay ma aha inkastoo aan muuqaal u qaban laakiin aniga ma jecli nolosheeda inaan tiktok aan soo dhex geliyo waxaan jeclay sideeda nolosheeda inay private iyo arrinta ay ka dhawaajisay ay Sharma Boy arrintaas oo ah arrin aad iyo aad aan sameeynin hablaha kale ama hablaha sida ay u badan yihiin ma sameeyaan arrintan waa arrin aad u fiican 100% sababtoo ah nolosha mar walba ay ku fiican tahay ama ku qurux badan tahay ama mar walba fanaanka ama ninka ragga mar walba jecel yahay ama fanaan walba jecel yahay mar walba noloshiisa ama xaaskiisa in ay bareefad u noqoto ama wax isaga kaliya u qaasa aan dadka bulshada ku jira aan warbixintooda ama noloshooda dhan ayna wada ogeen marka fanaaniinta badan si loo wada yaqaan ama fanaaniin fara badan oo aad iyo aad u badan si tusaalahan fanaanka caanka ama fanaanka baraha bulshada aad looga yaqaano fanaankaas oo ah fanaan Dayaxdal Nuurshe fanaankaas aad baa loo wada yaqaanaa ama qof walba juste dhanka fanka xiiseeyo aad baa u yaqaanaa noloshiisa ama waxyaabo uu xiiseeyo ama isiga ahaantiisa ama shakhsiyadiisa ama xaaskiisa marka taasna waxay muujinaysaa in uu dhanka baraha bulshada ay ku soo bandhigay isaga iyo fanaaniin fara badan marka taas ay kalifayso in ay warbixinto dhameystiran ama fanaan waliba oo la ogaado sirtiisa ama qofkii ka dambeeyo kuushiisa marka laakiin qofka bilaadanka ama fanaanka ama youtuber ha noqday ama wuxuu doon ha noqdo ama dhanka social media qofka mar haduu ku jiro ama oo ka yahay dad waxa qurux badan mar walba in wax walba ay u noqdaan wax private ah ama kaligiis oo ah shakhsi ama kaligiis waa wax uu si noloshiisa ku kooban laakiin ayna ku koobneen qof walba ama qofka tusaalahan taageerayaashiisa ama ay wada ogyihiin asxaabtiisa ama dadka ka ag dhow noloshaada in wax badan ay ka ogyihiin ma wanaagsano sababtay tahay waxa kaaga imaan karo dhibaatooyin fara badan ama waxa kala kulmi kartaa dhibaatooyin aan la soo koobi karin aan hadhowti aan ka filanayna wax walba ka imaan karo marka taas ay keenayso marka in wax walba ka dhigato private fanaanada caanka ama fanaanada dhanka fanka aad iyo aad ka saameynta faraha badan ku leh sanadada dambe oo dhanka murtida ku haysto sida ay ka dhawaajisay in ay mar walba jeceshahay ama mar walba ay taxaddar ugu jirto in ayna mar walba isaga ama iyada iyo ninkeeda ay noloshooda ama dhanka social media ayna soo dhigin ama ayna badana ayna ka soo duubin dhanka muuqaalada TikTok ama waxyaabahaas badana waa loo yaqaanaa dadka aadka saameynta u leh ama dadka aadka loo wada yaqaano in ay dhanka TikTok ama ay lamaanayaal ahaan ay muuqaal ahaan iskaga soo duubaan ama dhankooda Instagram-ka ay ku soo baahiyaan ama dhankooda WhatsApp-ka ama dhankooda Facebook-ka ama dhankooda YouTube-ka in ay ku soo baahiyaan ay la wadaagaan asxaabtooda ama dadka ka ag dhow kin ma sameyn iyada waxyaabahaas kuma dhaqaaqin wayna ka duwan tahay ama dadka kale ama bulshada kale midaas waa wax 100% aad u wanaagsan in ka duwnaato ama fanaaniinta kale ama youtuberada kale ama tiktokerada tusaalahan marka taasina waxay muujinaysaa in qof 100% aad u wanaagsan